حتى الصلاة ديدا أن لا أقبلين قبله سلاها أوغادان صلاة دودا إيه عبادة دودا حتى لا أقبل مايو إلى ننكو دا أي باري أوغان نغضان إلى ننكو دا أخلاق وناكسين يدقن وناكسين يكولان نولادان حديث عبد الله بن عمر ورنا هي حاكمنا وكو صحيح يلي مستدرجيسا أي النبي كيري صلى الله وسلم عليه اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عست زوجها حتى ترجع وحور النبي صلى الله وسلم عليه لما قفوت صلاة دود مدح مدافيسو إلهينا كما أقبله أدون سيد كيسا كردونتي iyo haweenay ninkeeda ku caasi garowday oo fallaagowday oo ninkeedii fallaagay fadara ku noqotay oo ninkeedii ku madax adkaatay oo ninkeedii 24 saac ku buuqays oo ku qayliyaysa salaada ay tukanayso madaxeeda ma dhaafayso yiri nabiga sallallahu sallam alayhi meesha acmaasha saalihaadka xagga ilaahay loo kor yeelo oo acmaasha saalihaadka adoonka ilaahay uu ka aqbalo ayada amalkeeda salaada ay tukanayso iyo soomka ay tukanayso iyo xajka ay xajinayso madaxeeda ma dhaafayo nabiga sallallahu sallam alayhi walidaalika waxa loo baahan yahay mar walbaba inay ogaato islaantu in jannadeeda iyo ridaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xiran yahay inay maaragtaa ninkeeda mar walbaba ay rila geliso taasa nabigu sallallahu sallam alayhi oo mar walbaba uu nugula dardaarmay waa inayna mar walbaba ay iska ilaaliyaan ninka iyo naagta isqabaahay markay doonayaan gurigooda inuu dhisnaado shayaadiinta insiga iyo kuwa jinka labadaba waa inay iska ilaaliyaan لأنه waxaa jira dad shayaadiin insi ah oo aan doonaynin raalina aan ku ahayn laba qof oo isku faraxsan oo qalbigoodu isku furfuran yahay nin iyo naag baari isku ah oo isqaba dad xusaad oo xaasidiina oo fiirin karin ayaa jira